munaasabadani maalinta caalamiga ee cudurka kansarka loo asteeyay 4 bisha February maalintani ayaa maalin walaac laga muujiyo xanuunka kansarka xarunta qaran ee caafimaadka loo yaqaan Xuseena ayaa abaabushay 3 maalmood oo laga bilaabo 5 ilaa 7 bishan ee sanadkan ayaa baaritaano lagu sameeyo xanuunka kansarka iyo meelaha uu ku dhaco sida ilma galeenka iyo waliba makaanka iyo sankaarka baaritaanadana lagu sameeyo dumarka ee gynecologiga ayaa ah 2500 franka Djibouti ujeedada ugu weyn ee in baaritaanada lagu sameeyo haweenka Djibouti sidii looga hortagi lahaa saameynta cudurka kansarka oo sababa dhimasho fara badan marka waxaa haboon in dumarka reer Djibouti ay tagaan goobaha caafimaadka si looga hortago cudurka kansarka waana inay ka faa'iideystaan fursadan ay u fidisay Xuseena oo ku taal xaafadda Hodan saad ogsoon tihiin shalay toole waxa laga xusay adduunka dhamaantii maalintii xanuunka kansarka dulahaan marka wasaaradda caafimaadka waxay jecelaasatay iyadoo ka faa'iideysanaysa martay maxaan ku dhahay dharaartaasi la xusay xanuunkaas kansarka inuu xaruntani Xuseena oo ku takhasusan inay baaritaan ku sameeyso xanuunada kansarka ku dhaca dumarka inaan bulshada reer Djibouti haweenka inaan u fidino baaritaano ku saabsan xanuunka kansarka ka ku dhaca naaska ka ku dhaca minkaba saadaradeed waxaan dadka ugu baaqaynaa 3 cisho maanta laga bilaabo bisha 5teeda 6teeda 7teeda inay baaritaanada socon doonaan xarunta Xuseena qiimo dhimisna ku sameeynay halka 5 ka ahaanaysa 2500 ka dhignay dadkana waxaan weydiisanaynaa xanuunkaasi xanuun farakul ku haweeyaan wadankeena ku haweeyaan haweenkana ku haweeyaan waxaan rabnaa xanuunku wuxuu leeyahay madax la qabtay mijo la qabtay malaha waxaan jecelahay ummaddu inay timaado oo xanuunkaasi iska baadho diyaar baan u nahay 3 cisho aan soo dhaweyno qiimo dhimisaasi aan u sameeyno ka bacdina way sii socon doontaa maanta baaritaankiisa awal boo